من أهل لبس ربي سبحانه وتعالى ورالي كي هاي بل ولبس وعرونا يقبل مسلمات ده هذي قادته مرض مركب وإني تشيرك وذا جاريس وحد دليل إلهي سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون مركب كهلي وحير وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. رب سبحانه وتعالى وحير قبلها مؤمنات كالنبي وحد كتر هذا إنه هذا الله بين يعني في رضا رجع أجنبي جاء جورسان كريجية أي فيرين أيان إنها هكلامه مركزه وحلو حشي فرج جودنا هائلاليين إنها الله بيتان كودا لقى لابو وحكستو ربي حرمي سبحانه وتعالى وحي إلى شماء تهي يؤد إلى لين تفرجي يعني حبين كترنك إن أوصل حمان كل عين أي تحدر أتهي يدور سيما أتهي في رضا الإلهي معايا باللوغة شيء ولا باللوغي سحمان باللوغة هذا في رضا سيمر كورك بالله عاقا كل هذا معناها نظرة فابتسامة فلقاء فموعد فلقاء يعني في ري مركو ركب الله ونيس الله ودي إني سأركان نينكي هوينيد مركي سأركان كدبنا ولا يسمو صونيا حقا معنا وحويان وحلا يسمو تشينيا إني سواحد بيتشين ولا يسأرك كرم كدبنا ولا وده هالليا وحاكو حكتا إن لا بلمو وحاكو حكتا إن لا كلمو الباب كيا فري مرك إيش هفرتي صوما ورائد الزنا هرمودك زينة هرمودك أوعى إيه هرس عدا إيه صهن كأوعى وإيشوي صازم معنا إيش هسا صهن ماشي يضو أي صوصها من سؤال بالله الراعي لكن يضو هذين وحبا صوصها مني ويد اللي عليو الله هذا واحد ويا ميل الوجو صوصها من الآدم ميس صازم معنا مرك إيش هلا بين واحد لوجو حكي فرج جودنا هاي إلاليين قروح دودنا يينا موجين بربي سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا وحي مقدم ويانا وحي مقدم ويانا وحا لغا ودا أما ووجهك إيا لودا كف معناه waxa weey labada cumaacumood waxaan u jeedaa labada macnaha waxa weey rusqiga ayaan dhihila gacanta qaybteeda hore iyo wajiga ayaa laga wadaayo taas inay asturaan waajib kuma aha waa sida Abdullah ibn Abbas iyo rag badan oo culimada kamid ah ay ku tagayaan ama ma aha waxa laga wadaa illa ma dhahara minha wixii iska muuqdayna iyagu u qastin mooyaan مثلا gabadhii shaqay ku jirta hawl bay qabanaysaa meel jirkeeda kamid ah muuqdo markiiba way asturtay illa ma dhahara minha ama ma aha mariyihii iyadoo qabto xijaaban baa waxyaalo fara badan oo quruxdeeda kamid ah la arki karaa waxa kamid ah mesela gabadha itaalkeed waa itaalku waa quruxda qayb kamid ah qoodha meesha la yiraahdo way Soomaalidu ay yiraahdaan macna marka iyadoo maradeedii qabtaa taagnideeda ay taagan tahay baa waxa laga garan karaa يعني waxa weey caayilkeeda caatadeeda taagin dherarkeeda gaabnideeda baa laga garan karaa waana qayb quruxda kamid marka qaybtaas oo la qarin kareynin mooyaane quruxda inteeda kale ha qariyeen barbilay subhanahu wa ta'ala marka adigu wajiga ama kafaynka ka dhig ama waxaad ka dhigtaa midda iska muuqanaysa labadaba culimada tafsiirka ee salafku ridwaanullah alayhim waa ku tageen mas'alada wajiga iyo labada kaf macawra mise awra mehe gabadhu waa muujin kartaa waa mas'alo culimadu ay isku khilaafsan yihiin halkana runtii waxa weeyaan hadii aan ku guda galno waqtiga ayaa naga dhacaya laakiin waxay isku waafaqsan yihiin wajiga gabadhu inay daboolato inay macnaha wanaagsan tahay ma waajib baaba isku hayaan mise waajib ma aha ma waajib ba mise waajib ma aha بعض أهل العلم waxay leeyihiin waajib ma aha qaarna waxay leeyihiin waajib weey taas halkaasan kaga baxayna laakiin wixii wajiga iyo labada kaf ka soo haray waa awra iyada taal islaama diidana waxa ku tusay ilaahay subhanahu wa ta'ala oraahdi uu yiri يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وحال النبي صلى الله عليه وسلم نبيه هوينكاga iyo gabdhahaaga iyo haweenka mu'miniinta intaba waxaad ku tiraahdaa maryaha ku sidaaya jilbaabka weyne xijaabka ah jirkiina ku sidaaya asturka isku sidaaya jilbaabka waxa la yiraahdaa هي الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال ومروين أي قبضوا مريه هذا عادي مركي قادته كذب أي دوش إسكيس سيديس أي جلباب كاللي هذا
sidaasana ugu saxiixsan wax lagu fasiro tafaasiir kala jirta macna waa midda ilaahay ka cafiyay subxaanahu wa ta'ala haweenku markay doobaan oo duq noqdaan marada weyn waa laga cafiyay gabadha intay gabadhooynan guur dhaafin oo rajo ka qabto in la guursado waxa laga doonayaa inay qaadato yaani waxa weeyaan cambuur iyo hagoog iyo hadday macnaha ku darsanayso googorad iyo wax kale waxay qaadataba inta markay qaadatay kadib maro weyn oo jirka wada dabasho waa inay ka korayso macna waana mid rabbi subhanahu wa ta'ala wal qawaa'idu min an-nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina yani haweenka daoobay ee fadhiistay ee guur ka fadhiistay ee aan rajo ka qabin in la guursado haweenkaasi maradii weynayd inay iska dhigaan waxba dushooda ma saarna dambi ka soo gaari maayo laakiin isla markaa hadana wayna qurux muujinay marka maro weyn bay dhigaan quruxdiina waa qarsoon tahay marada weyn marka waa mid ka baxsan mariyihii caadiga ah gabadhu ay qaadan jirtay macna midda way midda jilbaabka ah ee rabbi ka doonay subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam awalan ilaahi subhanahu wa ta'ala wa mahad iskale su'aalaha intoodii badanayd waxa lagu sheegay muxaadarada ayaa looga jawaabay طيب وقت سؤالها هو قادنا يا كل ما يسأل سؤاله وقت ما إلا بس وقت إلا ونيك يا سؤالها إيجاد سؤاله واحد رواه بسم الله الرحمن الرحيم شيخ حوغا وكعذر دارتي سؤالها ما دام وحو جعليستي in waqtigii su'aalaha uu muxaadaradiisa uu muxuu ku dhamaysto marka insha Allah ha loo sabro hadii ilaahay yiraahdo mawduuca ayaa ku dheer laakiin waa soo ururinaya insha Allah ta'ala marka wixii su'aalaha hadii la yiraahdo mawduuca ku saabsan ama nadwada fiqhiga ama kulamo kale insha Allah ta'ala waa suurtagal inaan isugu nimaadno laakiin mawduuca khaliini maartay aan dhameystiro waxa weeye marka jilbaabkaas jirko dhan wada gaadhaya waa laga maarmaan oo maradu inay jirko dhan wada gaadho waa daruuri waxa ku tusaya xadiiska nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi arinta waxa ku tusaya xadiiska Abdullah ibn Umar nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ninkii maradiisa jiido dhulka ku jiiday ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamada ma fiiriyo mana u naxariisto rabbi subhanahu wa ta'ala waa ragii ninkii dhulka ku jiida waa marada masaladan tilmaamayna oo ragga maryahooda xataa waa laga hadlayay labiskooda ruuxa ninka ah inay maradiisu aanqowga ka hooseyso waa xaraam qatciyo lama ogola markaas haweenkii waxay yiraahdeen nabiyow haweenku iyagu maxay ku sameynayaan maradooda wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yurkhina shibran taa ka hoos u dhigan waxay yiraahdeen hada lugahooda la arkaya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhudhun hoos u dhigeen marka waxa weeye maradii inay dhulka jiitamaysa laga garan إمام البيهقي وحو يري وحي دليل أتهاي قبردو إني لغهذا أسطرتو إني واجبتا يا حديث كان له دليشانيا سيدا سونا واجي صحابة إيا السلف كي دادكي قيمها لاي أخيارتها ساسا عمل كي يطلقن كمسلمين تؤوها وحا كتوسيا أم سلمة رضي الله عنها أيها هويني باوتي من الواحد تري أم سلمة مرضى إذا أيان ديريا دولك أيان انشيدا ها أهاتي وحان مريا دول وسخيسان أو نجاس لبان مريا maxaan ku sameeyaa maradii mar walba ma dhaqaya waxay tiri maya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yutahiruhu ma ba'dahu dhulka ka dambeeyo dhulka wasakhaysan dhulka ka dambeeya marada dhaqayo nadiifinay carrada nadiifte ka dambeeyay si marayso ee kale ayaa dhaqaysa wixii nijaasay marada soo gaadhay sidaasi ahadiis far badan bay nabigeena kaga sugantahay sallallahu alayhi wasallam sidaas way macna marka waxaan la ogolayn oo xijaab sharciya noqon kareenin goonooyinka gaagaaban ee haweenku ay qaataan ama maryaha hoos aan asturaynin ama kor aan asturaynin ama gacmihii qaybo kamida ay ka muuqdaan maryahaasi xijaabkii sharciga ahaa ma aha shardiga labaad ee shuruuda xijaabka iyo labiska gabadha muslimada yaani kamida waxa weeye in uusan maradu lafteedu aynan qurux ahayn ayada lafteedu inaysan ziina iyo qurux aynan ahayn oo hadday macnaha dhaldhalaalayso maradu oo iyaduba indhaha soo jiidanayso ragga shahwadiisa kicinayso hadda waxa weeyaan wixii laga taxadarahayay baba iyada lafteedaba keenaysaba lama ogola marka iyada lafteedu waa inay noqonin qurux iyo dhaldhalaal waa inay yeelanin mara caadi ah oo labiska caadiga ah aan ka baxsanayn macna waxa weey
يعني dhaqanka iyo labiska bulshada dhexeeda lagu qaato aan ka baxsanayn waxba indhaha aan soo jiidanaynin aan dhaldhalaalaynin aad aan u quruxsanayn mara noocaas oo kale gabadha muslimada inay ku baxdo Allah subhanahu wa ta'ala waa ka oranaya wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula naagii hore haweenkii hore ee jahiliyada ahaa ee gaalada ahaa quruxdooda say u muujin jireen oo kala ha